السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مهم يوم يلا واحد كسر دواتين وروح الدلك قبل كي يبدون بدك سوق هذه كنا حاول حاجة تمشيكا قبل ما أقول بالقرآن وركن الحاجة تمشيكا ما بحاكم ده هم دحين الجمهورية بجيبوتي مدن إسماعيل عمر جري أيام ما تكان بحي عاصمة بجيبوتي سويسي جدا عاصمة اللوزاك يدلك جم زامبيا هل كان سيكون جيد دون بقشة قلب بيتم بدل المعلومات iyadoo hormada ay ka tahay marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran haweenka Djibouti marwo khadra maxamed xayd hay'adda diiwaan rasaka ayaa saaka ku qabatay gurigoomada caasimada Djibouti munaasabad lagu qaybinayo qaybtii ugu horeysay lacagta zakada lagu talagalay carruurta agoomaha dalka aqoon kororsi ku saleysan tallaabooyinka sharciyeysan ku aadan xaaladooda iyadoo qaba cudurka VIH-da ayaa maanta ka furmay xarunta inaba caasimada Djibouti xagga wararka gobolka gaar ahaan dalka Soomaaliya guud ahaan 3 qof ayaa ku dhintay kadib markii laba qarax la beegsaday ciidamada booliska wararka Kenya dalka Japan waxa lagu soo waramayo in maanta dalka waqooyiga galbeed dalka Japan dhulgariir qiyaastiisa lagu qadaray 6 qiyaasta rishtarka maanta ku dhiftay waxaana dhulgariirkaasi iyada ku dhintay 7 qof 800 qofna way ku dhaawacmeen intaasi warkii oo kooban haatana isagii oo dhan warkii dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan Ismaaciil Cumar Gule ayaa maanta ka ambaxay caasimada Djibouti isagoo sii jeeda caasimada Lusaka ee dalka Zambia halkaas oo ku doodi doona booqasho qaban doonta muddo 2 maalmood guddiga dowladda caalamiga ee Djibouti waxa madaxweynaha ku soo sameeyay ra'iisul wasaaraha dalka Dilayta Maxamed Dilayta gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Djibouti Idris Arnaud Ali xubno ka tirsan xukuumadda baarlamaanka iyo waliba saraakiisha ciidamada kala duwan ee dalka markii ay gaareen caasimada Lusaka ee dalka Zambia madaxweynaha dalka waxa halkaas ku soo dhaweeyay guddigiisa dalka Zambia Mr. Wanasa waxaana loo riday كوب يلا باتني مدفع ونسوا بدوي مدحنا هذا الكاب أصلا المدرسة ورمى صالح إسماعيل وبدر لبده الدنيا هذين كان عاوة هذين بين كل أفضل كفولة وقرن دو تصد المرد أقولون كما لبده يفتي أيضاً شد بلارن أصلا لوكسون بالكازان يلا يلا هبط سوق بريسان أيروكا أكوميزا iyada hormud ay ka tahay amarwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran haweenka Djibouti marwo khadra maxamed xayd hay'adda diiwaan rasaka ayaa saaka ku qabatay gurigoomada caasimada Djibouti munaasabad lagu qaybinayo qaybtii ugu horeysay zakada maalka lagu talagalay carruurta agoomaha ee dalka marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran haweenka Djibouti marwo khadra maxamed xayd markay soo gaadhay gurigoomada caasimada Djibouti waxa halkaas ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha dalka Dilayta Maxamed Dilayta gudoomiyaha golaha maamulka hay'adda diiwaan al-Zaka mudane Aadan Sheekh Xasan agaasimaha diiwaan al-Zaka mudane Umar Ismaaciil Cigaal munaasabadaasi waxaa ka qayb qaatay gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Djibouti Idris Arnaud Ali xubno ka tirsan xukuumadda baarlamaanka mas'uuliyiin isugu jira rawd military iyo ku dhawaad 510 carruurta agoomaha oo ay badankoodu helinayeen hooyooyinkood munaasabadaasi waxaa lagu furay gabayo ay soo jeedeen carruurta agoomaha gabayadaas oo ka xog waramaya muhiimada zakada sida la ogsoonyahay madaxweynaha dalka mudan Ismaaciil Cumar Gule waxa uu ku dhawaaqay bishii Maars 30keedii xilliga la xusayo dhalashada nabigeena Sunnah Muhammad alayhi salaatu wasalaam in la xuso maalinkaasi xuska maalinka qaran ee agoomaha habeenkaasi oo munaasabadaasi oo ka dhacday guriga madaxweynaha ee ku leeyahay xaafadda Harmuus khudbad gaaban habeenkaasi ka jeeday madaxweynaha dalka waxa uu ku tabaxay in waajib ay ku tahay qof waliba oo eedo waxsiiyay in uu gargaaro agoomaha waxaana sanadkan la soo ururiyay lacag gaaraysa 30 malyan 600 oo faranka Djibouti waxaana qoys waliba heli doona ama la siin doona 6,000 oo faranka Djibouti sanadkiiba Nous pouvons désormais rêver comme tous les enfants de notre âge. Sama
daawaraale hada waxaana sanadkan la soo ururiyay lacag dhan 30 milyan iyo 600 kun oo faranka Jabuutiya waxaana qoyskiiba uu heli doona lacag gaaraysa 60 kun oo faranka Jabuutiya munaasabada lagu qaybinayo qaybteedii horeysay ee zakaatul maalka waxaa hadal gaaban ka jeediyay gudoomiyaha golaha maamulka hay'adda diiwaan arzaka mudane aadan sheekh xasan waxaana khudbadiisa uu ka wadi sheekh xasan khudbada hawaalkaasi ka jeediyay saaka waxa uu ku sheegay in hay'adda diiwaan zakaat la aasaasay sanadkii 2004 iyadoo uu leeyahay dowladiisahaasina madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha xukuumadda mudane Ismaaciil Umar Geele si gargaar loogu muujiyo dadka taagtoodu ay yar tahay oo taageero maaliyadeed loo siiyo gudoomiyaha golaha maamulka hay'adda diiwaan zakaat mudane aadan sheekh xasan waxa uu tilmaamay in diinta islaamku ay mudnaan gaar ah siinayso shakhsiga sida ay ahmiyadda u siinayso bulshada uguna yeerayso dadka muslimiintu inay la yimaadaan camalada wanaagsan ee samafalka oo ah tallaabooyinka barakaysan ee lagu waajibiyey qofka muslimku inta uu ifka ku nool yahay isagoo weedhaasina u daliishaday xadiis uu sheegay rasuulkeena suubanaa ee Muxammad calayhi aska salaatu wasalaam ugu dambeyntiina gudoomiyaha golaha maamulka hay'adda diiwaan zakaat mudane aadan sheekh xasan waxa uu uga mahad celiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti gudoomiyaha xukuumadda mudane Ismaaciil Umar Geele iyo haweenaydiisa marwada koowaad ee dalka marwo khadra maxamuud xad taageeradooda ay ka geysteen si adkaynta howlaha hay'adda diiwaan zakaat من الأيتام وها نحن اليوم نقوم على مرأى ومسمع كلمة waxaa munaasabadaasi hadal gaban ka jeedisay marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran haweenka Jabuuti marwo khadra maxamuud xad waxaana ku tibaaxday marwada in gobonnimadeedu ay u asbaxayso inaan ku noolaano wadaha qaybsi istaageersi sida diinteena xaniifan ay falayso khudbada marwada koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran haweenka Jabuuti marwo khadra maxamuud xad waxay noo soo eegay noo soo turjumay wariye Umar Daliye Beeriye Mesdames et messieurs, honorables parents, l'indépendance de notre nation gobonnimada qarankeena ee lagu gaaray halganka culus kuma kooban oo kaliya in aynu ku noolaano mujtamac ah oo noo damaanad qaada gebi ahaanteed nabadgelyada sharafta aadamuhu ay dhigayso balse gobonnimada qarankeena waxa ay noo asmaxaysaa in aynu maalin walba ku noolaano wada qaybsiga qiyamka dulqaadka cadaaladda istaageersiga ay diinteena xaniifku ay noo sheegtay qiyamkaasi muqadaska oo ku jira dhaqankeena oo ahna shakhsiyadeena reer Jabuuti ahaaneed waxa ay yihiin udubdhaxaadka qorshaha bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumaddiisu allah ku garabgalay ay wadaan si uu shakhsi walba muwaadin walba oo reer Jabuuti ugu noolaan karo sharafta uguna faa'iidaysto gebi ahaanba wixii xuquuq uu leeyahay balse isla marhaantaana la tiro wixii ku xun ee ah geesu fuquuqa si markaasi loo qoodin karo rajada isla marhaantaana loo dardargeliyo wixii tamara si wadankeena looga saaro rajo la'aanta iyo wixii uu soo raaca idanka eebbe waxa dalkeenu uu imika ahaan hore ugu sii tallaabsanaya horumaro dhinaca dhaqaalaha oo iyagu muuqda sida uu madaxweynaha jamhuuriyaddu u sheegay waxaa si muuqata nasiib darro in horumarkaasi uu yahay mid aanan lagu fillayn si cid walba bulshada inteeda kala duwan ay uga faa'iidaysan karto in badan oo ka mid ah bulshadeennuna weli baahida ayaa haysa oo wax khayraadana ma haysato taasina waxay keentay in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu ku dhawaaqo 30 bisha Maarso inay noqoto maalinta qaran ee agoomaha Jabuuti agoomaha Jabuuti oo ay u xilsaaran tahay inay daryeesho hay'adda diiwaan zakaat oo iyadu meel dhigta barnaamijyada dhinaca taabagelinta gargaarka waxaana maanta aniga sharaf ii ah in aan nagala qayb qaato munaasabadan iyadu u horeysa ee qaybaha u horeeya ee lacagaha lagu siinayo ama lagu gaarsiinayo agoomaha waxaad ii asmaxdaan in aan hambaliyeeyo haweenka iyo ragga meelay ahaan ka qayb qaatay isla mar ahaantaana suurtageliyey barnaamijkani taakulaynta agoomaha waxaan kaloon hambaliyeynayaa guud ahaanba shaqaalaha hay'adda diiwaan zakaat oo iyagu door muhiim ah ka gala dhinaca bulshadeena ama muwaadiniinta dalkeena inta ugu nugula garab jooga waxaanan iloobeynin dadka iyaguna sida mutadawacnimada uga howlgala xaafadaha dhexdooda
istaageersigu waxa uu ka mid yahay dhaqankeenna balse si uu sidan uga sii wanaagsanaado waxa loo baahan yahay inuuna noqon mid shakhsiyaad ama qof uu ku kooban balse inuu ahaado mid habaysan oo isagu wakhtiga la socda istaageersigaasi waa inuu ahaado mid ay weheliyaan waxyaabaha kala duwan iyagu sii joogtaynayo jiritaankiisa hadday noqoto dhinaca maaraynta wanaagsan hadday noqoto sida suurtagalka ee maskaxgalka ee iyada wax loo maareeyo iyo weliba sida loo wacyigelinayo bulshadeenna ama muwaadiniinta reer dalkeenna oo iyagu taageersan istaageersigaasi ujeedaduna waata keentay aasaaska hay-adda diiwaanu zaka oo iyadu asmaxaysa in bulshadeennu ay waxyaaba qaarkood ka qaadato dhinaca dhaqaalaha xeerarkiisa gaar ahaana xagga maaraynta ku aadan iyo taabdhaqaaqa dhinaca xisaabaadka kuwaasi oo gebi ahaanba iyagu leh waxyaabo u gaara oo ku aadan sidii jawaabo loogu heli lahaa baahida iyadu markaasi la ogaado iyada oo lagu tirsanayo guud ahaanba bulshada iyadu ka faa'iidaysanaysa iyo weliba inta u faa'iidaynaysa waxaad ii asbaxdaan inaan idin xusuusiyo in abaalgudka uu helayo qofka wax bixiya uu miisaankiisu leeyahay inta uu markaasi bixiyey waa kii rasuulkuna naxariistii nabadgelya korkiisa ahaatay la yidhi qofka u adeega haweenka odayadu ay ka dhinteen iyo agoomuhu inay helayaan abaalgud la mida ka isagu xaqa eebbe markaas u dagaalamaya ugu dambeyn marweyn iyo mudanayaal waxaan halkayga ku soo gabagabeynayaa hambalyo iyo dhiirigelin aan u jeedinayo gebi ahaanba dadkii iyagu ka soo qayb qaatay mashruucani kuwaasi oo iyagu bixiyey lacagaha taas oo aan rajaynayno in ay ahaato mid sii socota oo joogta aanan goonin xiriirkan iyo cilaaqaadkan aynu samaynay ee ku aadan daryeelka iyo badbaadada agoonaheenna waxaan u rajaynayaa hay-adda diiwaanu zaka in ay hesho oo ay yeelato kalsoonida maanta tuuka sii ballaaran iyadoo la ogyahay howlaha ay wadayna yihiin kuwo qiimo fara badan leh eebbaha nagu garab gale sidaa ayaa aynu ku sii wadi doonaa waxaan ku dadaali doonaa deeqsinimadeenna iyo weliba dadaalka aynu hay-addaasi diiwaanu zaka la garab galayno taasi oona howlaheeda ay si aada markaas u sii wado waxa aan idiin ballan qaadayaa sanadka dambe hadduu aadaydmo sanadka dambe oon gebi ahaanba aan idinku yeerayo inaan ahaano safiirada ama danjirayaasha xaqa agoomaha iyo muwaadiniinta madaxa koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran haweenka jabuuti marwo khadra maxamed waxaad oo khudbad gaaban ku jeedisay munaasabadaasi kadib khudbadaasi madaxda koobaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran haweenka jabuuti marwo khadra maxamed waxaad waxay guddoonsiisay jeegii ugu horeeyay gabadh wada iyadoo ka mid ah agoomaha reer jabuuti madaxa koobaad ee dalka marwo khadra maxamed waxaad waxay jeegii ugu horeysay ee zakada iyadoo ay guddoonsiisay gabadh wada iyadoo ka mid ah agoomaha reer jabuuti kadibna waxaa iyaguna sidoo kale u qaybiyey lacagahaasi agoomaha reer jabuuti mas-uuliintii uu ka qayb qaatay munaasabadaasi sida ra-iisul wasaaraha dalka adileyta maxamed adileyta gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee jabuuti idris arnauga cali gudoomiyaha golaha maamulka ee hay-adda diiwaan arzaka mudane aadan sheekh xasan murey mas-uuliintii uu ka qayb qaatay munaasabadaasi lagu guddoonsiinayay lacag qaybtii ugu horeysay lacagaha lasoo ururiyey ee lagu talagalay agoomaha dalkan jamhuuriyadda jabuuti hay-adda diiwaan arzaka waxaa iyadu loo dhigtay nidaam lagu bixinayo lacagahaasi oo qoyska weliba waxay heli doonaan lacag gaaraysa 60 kun oo faranka jabuuti sanadkiiba oo la qaybin doono 4 qaybood saddexdii biloodna waxay heli doonaan 15 kun oo faranka jabuuti ah ciidamada difaaca jenaraal zakariya sheekh ibraahim iyo agaasimaha ciidamada booliska korneel cabdilaahi cabdi ku baaqay in la sameeyo maalintii agoonka reer jabuuti xaflad weyn loo qabtay dadkii ballanta qaaday si fiican ay uga soo jawaabeen
waxaan la soo bixiyey ilaa hadda 520 agoon ayaa la bixiyey intaa in leegna in la helo ayaan rajaynaynaa haddii alla idhaha sanadka soo socda ilaa dhowr iyo 30 malyan oo lacaga ayaan hadda soo ururinay 8 malyan oo kamida maanta ayaan bixinay qaybta labaadna waxaan bixin doonaa bisha 9aad iskoolka markii la galayo labada qaybood kale sanadka ka hareeraan midba 3 bilood kadib ayaan kala bixin doonaa sidaa bay u socotaa markaasi sida ciyaalka loo dooranayana sidii hore ee sekada u soo sameynayna baan soo sameynay marka sidaa quruxda badan ciyaalkiisa maanta u dhacday magaca Maryam maanta waxaad ka warantaa shucuurtaadu sidee tahay shucuurtaydu maanta way iska fiican tahay annagoo baan oo dawladdeedu is joogno alxamdulillaah rabbil caalamiin bacdan booy caawimo noogu yeeran ilaahay baan ugu mahadinaa allah ka jisaaysiiyo calankayada iyo dawladayadana allaha noo adkeeyo dawladayada noo kobciyo noo koriyo noo kaalin geliyo allaha noogu wadaan leena insha allah anigu waxaan leeyahay 5 odagaygu 2001 bishii 5aad shanteedii buu dhintay ilmaha ugu roon waa 15 jir kan ugu yarna waa 10 jir waa ka waran maxaad ka shaqaystaan waxaan ka shaqaystaa anigu jooga daqiiqa yani galin hore galin dambe dibaa wadnaha igu kacay xagaaga ma fiicin imika 5 maalmood iyagoo bilaaqada yaa saaka la yeeray alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay dawladdeeda loo kobciyo loo kaalin geliyo ilaahay waa lagu mahadinaa inanka gibaa inankana magacana مهدي كان اسكندر دقتا كان مسافر دقتا افراد اي مهدي يا ما انت من عند البسي اي كورن شعورتها بس دي في عنها يا ضمن ما agaasimaha diiwaan absaka mudane Cumar Ismaaciil Cigaal ee dowladda haweenkii iyagoo aba socdaan ay helinayeen carruurtii agoomaha la guddoonsiiyay qaybtii ugu horeysay lacagaha zakaatul maalka waxaana waraysiga si kala duwan soo qaaday Zainab qolka shirka wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare waxaa maalintii shalay lagu qabtay munaasabad lagu qaybinayo shahaadooyinka baccalaureate ee sanadkani munaasabadaasi waxaa daadihinayay wasiirka waxbarashada qaranka iyo tacliinta sare mudane Cabdi Ibraahim Cabsiye waxaana uu ka qayb qaatay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada qaranka waalidiinta ardayda iyo weliba ardayda ku guuleystay shahaadada baccalaureate ee sanadka 2017 ardayda iyagoo helay amasoonka trade amaba kaga amasoonka biya waxaa iyagu heli doonaan lacag burs ah oo ay ku sii wada doonaan waxbarashadooda wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cabdi Ibraahim Cabsiye oo hadal gaaban ka jeediyay munaasabadaasi waxa uu horta dhaxaliyay ardayda iyagu ku guuleystay waxaana ku dhiirigeliyay halkaas ay ka sii wadaan waxbarashadooda si qayb ay uga qaataan horumarka dalka ugu dambeyntiina waalidada ardayda dowladda ardayda waxay mahadnaqeen wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare mudane Cabdi Ibraahim Cabsiye iyo xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti taageerada had iyo jeer ay la garab joogaan ee ku samaysan xagga waxbarashada konkursi ku salaysan tallaabooyinka sharciga sida ku aadan xaaladda iyagu dadka qaba cudurka VIH-sida ayaa maanta lagu qabtay xarunta inaad ee caasimadda Jabuuti konkursigaasi waxaa daadihinaya la taliyaha wasiirka garsoorka mudane cali maxamed afkada waxaana ka qayb qaatay wakiilka qaabilsan barnaamijka la dagaalanka cudurka AIDS-ka mudane Ismaaciil Suleyd Geedi iyo tobaneeyo oo ra'yooda shakhsiyaad badan duniduna hogaamida ku samaysmay sidii loogu baraarujin lahaa bulshada rayidka xuquuqda ay leeyihiin dadka iyagu qaba cudurka VIH-sida intii konkursigaasina uu socday halkaasi lagu soo bandhigay tallaabooyinka kala duwan ee ku sal leh xeerasha qaran iyo tacaalamiga ee lagu daryeelayo dadka iyagu qaba cudurka VIH-sida kadibna waxaana waraysan la yeelnay mas-uul ka tirsan barnaamijka la dagaalanka cudurka AIDS-ka sida agawaana Ismaaciil Sugi Geedi tiriyadan waxaan kaga hadlaynaa maanta bulshada rayidka anuu martiqaadna waxa weeyaan sidaan u baro xeerka cusub ee maaragtay baarlamaanku ratifiyeeyey oo presidentku uu promulgeeyey waxa weeyaan xeerka ay leeyihiin dadka cudurka sidaaga la nool wixii ay maaragtay waajib leeyihiin iyo wixii ay waajib leeyihiin inaan loo sheego waxay xeer u leeyihiin inaan loo sheego kolkaa bulshada rayidku kaalidooda kaga jirtaa sidii cudurka loola dagaalamayo sidii maaragtay dadka cudurka qabana loo gacan qabanayay kaalidooda kaga jirtaa waa dal markaa inay ogaato ay garato wuxuu qofka maaragtay cudurka qaba uu waajib u leeyahay
iyo wuxuu maaragtay xuquuq u leeyahay inay ogaato yihiin maantana waa maalintii aan kaga raadinay bulshada rayidka halkan maaragtay inay waxaasoo dhan inay ogaato maanta waxaa nala joogaa dhowr iyo 20 association oo Djibouti oo dhan ka soo hadlay kuwa weliba si toos ah wada barnaamijyo maaragtay la dagaalanka cudurka sidaada iyo weliba kuwa barnaamijyo kale oo si toos ah wada iyaguna dadka cudurka la nool service u sameeyo oo la shaqeeyo xagga wararka caalamka gaar ahaan wararka dalka gobolada haddaan ku bilowno gaar ahaan dalka Soomaaliya ugu yaraan 3 qof ayaa maanta ku dhintay laba qarax oo la beegsaday ciidamada booliska dalka Soomaaliya geeska shirkii dibadheshiisiinta qaran oo ka furmay maalintii Axad caasimadda Muqdisho dalka Soomaaliya ayaa dib loo dhigay waxaana lagu ballansan yahay shirka dibadheshiisiinta qaran Soomaaliya inuu furmo maalinta Khamiista afalada warkaasina waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaha nooga soo waray magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya Mukhtaar Maxamed Hiraabe Mukhtaar lagu furayay shirkii dibadheshiisiinta Soomaalida ayaa maanta ka dhacday xarunta gaadiidka booliska iyadoo gabagabadii kulankaasina ay hareeyeen hoobiyaal ku soo dhacayay dhinacyada goobta uu shirku ka soconayay waxaa munaasabada kulankaasi xariga ka jaray madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe xubnaha labada gole مسؤولين iyo danjireyaal ka kala socday dalal Afrikaan iyo waliba urur goboleedka IGAD iyo ururka midowga Afrikaanka madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo furitaankaasi kadib ama furitaankaasi shirka dibadheshiisiinta Soomaalida hadal dheer ka jeediyay ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda uu shirkan u leeyahay shacabka Soomaaliyeed isagoo dhinaca kalena wacad ku maray in haddii labada sano ee u harsan kooxaha ka soo horjeeda ay dagaal ku dhameeyaan aanay weligood markaasi kala hari doonin taasoo dadku ay u macnaysteen inuu madaxweynaha ula jeeday haddii aan la siinin fursad isna inuu ka degi doonin madaxtinimada madaxweynaha oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi kaloo kulankaasi ka hadlay danjireyaasha Yemen iyo Uganda ay u soo wakiisheen Soomaaliya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Kenya wasiir dowladda dalka Itoobiya iyo ambassador Kiblikaad oo dhammaantoodba ka hadlay muhiimadda uu shirkan u leeyahay Soomaalida ergada ka kala imaanaysay gobolada dalka Soomaaliya oo tiro ahaan laga doonayay inay gaaraan ilaa 1335 xubnood ayaa waxaa soo xaadiray tiro kor u dhaafaysa ilaa 800 xubnood taasoo keentay in 3 maalmood la hakiyo shirka xagga wararka caalamkana gaar ahaan dalka Ciraaq ugu yaraan 67 qof ayaa ku qorbaxay 158 kale oo ku dhaawacmeen kadib markii baabuur midaysan fooda loo dhashay xafiiska xisbiga siyaasadda Kurdiyiinta waxaana la sheegayaa in halkaasi sidoo kale baabuurkaasi midaysan in waxyeello geystay halkaasi ku taalay bulgariin maanta ku dhuftay waqooyiga galbeed ee dalka Japan waxa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen 7 qof 800 qofna ay ku dhaawacmeen bulgariinkaasi qiyaastiisuna waxaa dhammayd 6 dhibic marka la eego 6.8 marka la eego qiyaasta Arishtaraka waxaana bulgariinkaasi sidoo kale badbaadiyay xarunta xagga nuclearka dalka Japan qodobkaasi ayaa daawadaya lagu dambeeyay warwixii dalka gobolka iyo dadweynaha ka soo gaaray habeenkii caawa xagga telefishinka Djibouti intaan dib u kulmi doono dhammaantiinba meel ka soo joogtaan oo naga daawanaysan waxaan idin doonaynaa nabadgelyo iyo ammaano Allah wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh